kulanti wacan asxaabtayda daafaha dunida ku kala noolay ku soo dhawaada Tani TV waxaan ku suganahay maanta Southall ana idin sheegin baa Southall ku suganahay ayaad garanaysaa in Southall joogno sababtoo ah dhinacayga waxa taagan saaxiibkay Germany soo dhaw waa soo dhaw brother how are you soo dhaw Southall soo dhaw su'aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxa weeye waxaad ii sheegtaa muqmad maxaa la Soomaali muqmad waxa lagu dhahaa wallahi aan garanay أنا حكي من مقدشو أنا معدل هرجيسو so you know different okay قربكي واحد تاجر مقعيش شعيب سوري تاني تيفي سوري واد ما سنتو سودوه وسؤال أفرح حمرة كلمة دلالة سكسانت إيش سكسانت و دكسية نعيق واحد فريا مقعيش محمد حاجي أو تكين حافظ ساطول سؤال شو هو رسالة كويدين يا محمد حاجي وحوي واحد إيش تا تبقى الله محل هذا في الصوية بوليس ها دب قلاع إيش أو حد يبقى ولا غنا دب قلاع حنو ملاي واحد دب وقلاع ما هي دي ما قريتي ما حولا ما دقيق با دب قلاع كلمة دب قلاع محل جوضة والله واحد قلوا عن مياه مركتي واحد قلوا عن باو ملايا اوكي دب يقول عشان تسميها سيد دواق تاسد كوت سيد دواق دب قلاع ودواق بات ساسو صعدا سمو نعيق واحد فريق مقعيش ولا ولا مقعيق أوسي سؤال شو هو كويدين يا وحوي وح كلية يندولو أركيش وح كلية يندولو أركو إيشك أوسي نيكاسي وحبه ما أركيه نيكاسي ما وحبه أركا وح كلية يندولو أركيش his dreams ريس أركيه ما هو تا كلها مقعيش يا عمي زي جيرو تبقى محل جوضة تبقى مقرس دبقلوع wax ma weeyaan oo xawayaan oo foolxun xawayaanka kale ka sii foolxun magacyo badan waa lagu yeeraa Soomaalida kulli dhinac walba ay degan tahay magac bay u taqaanaa inay fdin daa tagto maxay dhan waraaba dawada linkan xajkini waa wuxuu ka soo jeedaa Kenya Soomaalida kale daa u tagto dhurwa kulli ba magac u sheegaan waa uu dhib badan yahay waa fulay markuu maartay markuu habeen walbana inuu wax cunuu rabaa oo imaada shaqarin doo maqlan oo ka cadara marka dibqalo wakaas waa dhurwa dhinacayga waxa taagan khadar awil jamaac oo ku magacdeen maayarka xaafadatan waxa weeyaan ninkani maayarka ama mas'uulka xaafadda Southall مسؤول وانو كسلانay aad iyo aad baan iniga qaaday sida sharafta laad igu soo dhaweysan xaafadayda aad noogu timaadeen martibad nootiin inaan idin soo dhaweeyno sharcibaad nagu leedahay welcome to Central London man in London walaalayaal oo Central London Southall centerkii ka dhigteen ba centerkii waanu ka dhignay maadaama Southall dub habayn loogu sameeyay oo la qurxiyay oo la shiday oo caawna uu showgu ka dhacayo magaalada Southall aad iyo aad baan inigu soo dhaweynaynaa showgiina waad fasaxday maanta showgiina waanu fasaxnay caawa dalmar yara awgii nin maadaama uu martin noo yahay uu Mareykan nooga yimaahay oo aqoonsi noo soo qortay waan noo ogolaanay xaafadan Southall Soomaali aad u badan ba ku nool waayadii dambe aad bay ugu sii badatay ganacsiga ka jira bal tirada Soomaalida maxaa lagu qiyaasaa xaafadan degan waxaad ku qiyaasaysaa adigu at least 10,000 oo Soomaaliyeed baa xaafadan oo cid walba leh ganacsiyada ka waran ganacsiyada ma sha Allah maalin walba waan dul maraa aad iyo aad bay u faraxsan yihiin waan kormeelaa waxaad ii sheegtaa tibagaalaha ma garanaysaa ولي ما خلد أنا قلت له في الصومال غوير وقاله ninka waxa weeyaan waa Europe noloshiisa waa dadka Europe ka koray weeyaan saaxiib aad iyo aad baad u mahadsan tahay kelmadda la yiraahdo armaajo maxaa lagu yiraahdaa waa talaagada talaagada armaajo talaagada boobta dawadayaal iminka garabkayga waxa taagan saaxiibkay Liibaan oo aan muddo dheer saaxiib ahayn oo aan isla xaafadan aan iminka ku kulanay Liibaan soo dhow ودوه ورالكي بشير تاني هذا يوم ما صنتهاي مدير سوق هيدا بيسي حاجة هي نيجوري بري لندن هاتن كوسون نقضي في لندن ninkan wuxuu ahaa laacib weyn oo kubadda cagta ah oo xaafadan muddo dheer u ciyaarayay saaxiib aad kubadii wali ma ciyaartaa kubadii waa ciyaara walaalaha ma sha Allah bal waxaan ugu warataa
soomaalida xaafadan ku nool iyo tiradooda iyo ganacsigooda liibaan soomaalida inay xaafadan aad ugu badan yihiin xaafadan iyo xaafada Wembley wadanka Ingiriiska aad ugu badan yihiin soomaalida waa xaafada kaliya markii ciidaha iyo loo soo aado xalwada iyo buskudka iyo waxyaabaha macmacaanka laga iibsado soomaalida aad ugu badan laakiin tiradooda ma qiyaasi karo laakiin meesha ugu badan waa South Hall iyo Wembley meelaha ugu badan iyo Barking ninkaas iiska heysna sidoo kale uu joogo aad u joogo waxaan ku raacinayaa inta information ka hadlaysay laba su'aalood oo Soomaaliya su'aasha ugu horeysa waxay oranaysaa liibaan muqmad ma taqaana muqmad ha garanaya si fiican muqmad soxorta af Soomaaliga oo tiro badan yahay af Soomaaligana laba u qaybsamaa maay maxaa tiri marka muqmad dhanka waqooyi waxa laga yiraahdaa dhinaca koonfur waxa lagu yaqaanaa oodka imika waxaan ku suganahay maqaaxida Rayaan coffee ayaan ku suganahay Rayaan coffee ku suganahay imika waxa garabkii taagan magacayga sheego magacaygu waa Daahir wax ka horeeyo oo aanad arki karin adigu sheeg wax ka horeeya oo aanad arki karin sheeg wax aniga horeeyo aan arki karin أنا سو ديار كرونيه دي مارت يا wax aniga horeeyo aan arki karin wax aniga horeeyo arki karin ma jiro wax walba iga horeeyo arki karaa aad baad u mahadsan tahay su'aasha tagu xigta waxaad ii sheegtaa maxamed waxaad ii sheegtaa muqmad maxaa la yiraahdaa muqmad waxa carabi show may muqmad waa af Soomaali muqmad ii sheeg muqmad waa maxay muqmad wax la cunamiyaa dee wax u maleeyaa wax la cunamiyaa ii sharaxdi wax la cunamiyaa muqmad ii sheeg maxaa la yiraahdaa ma si balbalaadhino hadan sharaxno ma hilba ma lama balbalaadhino lama sii sheeg muqmad wax muuqda miyaade marka ma wali waxaan ku suganahay xaafada South Hall ee ku taala galbeedka magaalada London waxaan joognaa The Green oo ah area Soomaalidu ay aad ugu badan tahay garabkayga waxa fadhiya magacayga sheego waxa la yiraahdaa Maan Cusman oo degan xaafada xagada inta waxaan deganay gobol dabada oo gobolkaas bal noo sheeg Wilsha la yiraahdaa Wilsha uu degan yahay bal xaafada South Hall bal naga waran waxaad ii sheegtay inaad muddo hore aad deganaan jirtay xaafadda South Hall waxaan ka guuray 1998 iyadoon dhul kale iyo geedka halka ku yaala aad arkaysaa inay weyn oo yar yahay yaa ka guuray marka laygama yaqaano marka soo gal waxa laga yiraahdaa xageebad ka timi Holland bad ka timi ma Sweden bad ka timi Europe ta kale marka anigu waxaan ka guuray 98 kii February 1998 xaafadda ninkaasaan garanayaa oo halka ay ka shaqeynayo aanu yar yarnay marka waa 1998 ilaa 98 kilo kuma soo noqono waa muddo aad u dheer bal waxaad ii sheegtaa faraqa u dhaxeeya bariga aad xaafadda degnayd iyo iminka xaafadda bariga iminka aad buu dhisanto meelihii aan arki jirnay bildanadii aan arki jirnay wuxuu way dhamaadeen qaar kale laga taago iminka Radio Sunrise meeshii waxa ka taagan luxury apartments marka aad buu isku bedeshay aad buu dhisantay macal hindidii iyo Soomaalidii iyo wixii way dhisteen marka aad bay isku bedeshay intaan ka guurnay magaalada bal Soomaalidii waagaas iyo ganacsiga xaafadda laftirkooda barigaaba boomin bahay bariga bahalkii qaadka haba socday bariga bahalkii qaadka haba socday barigaas ka shidnayd imakaase waan arkay Soomaalida waa kale wili bahardi u furay inta ma furay imaka halka Greek nin Abdi Ali iyo Ahmed Looran jiray baa ku haysan jiray maqaayad ugu horeysa 1996 marka way businesskii iyo wixii wili waa boomin ee bariga hawli kala jiray oo kala jiray aad iyo dhinacayga waxa taagan gaafo waa taagan gaafo su'aalihi xalxaraashan saddex su'aalood ku weydiinaa su'aasha ugu horeysa waxay oranaysaa sheeg waxa kaliya ee indhooluhu arko gacmihiisa waxaad ii sheegtaa waxa kaliya ee indhooluhu arko ii sheeg والله ما قانا والله بل نيو اسكو داي dareenkiisa اوكي dareenku uu dareemaya laakiin ma arkayo waa aragtida kamid dareenku garanaya gaafo waa mulkiilaha dukaanka weyn ama restaurantka weyn dusha restaurantka weyn ee bulsho maxay iibsan
وراشن سومالي راشن عدان anything you need we bring come in and taste it anything ها مهرده wax kastaan u qabanaa gagaabeyda laakiin wali kii weynaa maanu gaarin insha Allah waa gaarayna wali wuxuu ku yaala degree mutaawadayaal ku yaalaan hamoogaan haddaad aroos ama xaflad leedahay ama casuumad leedahay hamooganin imkaan anigu ka soo cotaynay hamoogaan idinkuna soo ogaaday ma sharaxi karayno laakiin idinkuba nala soo insha Allah jazakallah waxaan joognaa maqaaxida ama kafiga xaafadan ku dhex yaala ee loo yaqaano Rayaan soo dhawo Shariif waan ku dhaway Bashiir aad baan ku salaamayaa Shariif oo ay soo kay dambeysay muddo aad u dheer ayaan maanta halkan ku kulanay oo ah ownerka coffee shop number meesha lagu waran wallahi way xaafadu way fiicantahay ma sha Allah aad bay wanaagsan tahay diiwaanu la haysanaa Bashiir oo adaa lagu waayay long time xageed ka dhacday ma tani galka barayaan si kadisa ha wallahi aad u fog wallahi fiicantahay walaal dhowr iyo 10 sano ka hor bay soo kay dambeysay aad iyo aad buu ku soo dhaweynaa maxaad iibisaan maxaad ka daan waxaanu qadnaa deewa coffee shop kafeegi tiigi iyo breakfast-ki quraacdii qadadii sambuuse bur wax walba de ayu nooc snaagiyadii oo dhan waxaad iga warantaa ganacsiga xaafadan wallahi ganacsiga xaafada aad buu fiicay ma sha Allah aad baan u haysanaa alxamdulillah maxaa lagu qiyaasaa Soomaalida tirada Soomaalida ee degan xaafadan Shariif de aad buu badan wax ma la soo koobi karo ha ganacsigu si fiican buu ma sha Allah alxamdulillah thank you restaurant weyn ee Shabeelle restaurant oo ku yaala xaafadan chefka weyn ee maqaaxidan ayaa ila jooga magacayga sheeg walaal magacaygu waa Umar Ali Ibrahim waxa weeyaan waa Shabeelle de kulli South Hall waxa weeyaan waa la yaqaanaa waa caan South Hall maadaama la yiraahdo de Shabeelle maadaama caan ku tahay cuntooyinka macmacaan waxaanu haynaa dandanaanka casuumadaha de soo dhaweynta wax walba waanu sameynaa waxaad ii sheegtaa cuntooyinka maad samaysaan casuumadaha iyo meherada iyo aroosyada cuntooyinka maad samaysaan ha waxba waanu sameynaa waxa weeyaan xafladaha gaagaaban waanu sameynaa kuwa maartay qaadashada maartay xafladaha aroosyada meherka soo dhaweynta xaafadaha maartay kuwa lagu cunayo iyo kuwa halkan lagu cunayaba intaba waanu sameynaa waxa dhinacayga fadhiya chefka weyn ee Axmed baa fadhiya oo isla xaafadan ku leh ganacsi Axmed soo dhaw aad iyo aad baan u dhowahay waad mahadsan tahay adeer aad iyo aad baan u mahadsan tahay waxaad noo sheegtaa bal ganacsiga Soomaalida imisa maqaaxiyood oo ganacsi ama dukaan oo ganacsi ku yaala xaafadan South Hall waxa ku yaala ganacsi badan maqaaxiyuhu waa ilaa 7 maqaaxiyood waa weyn baa ku yaala oo Shabeelle ka mid tahay maqaayada yar yar oo kubadda lagu daawado oo mataqaana hooyo isiyahana way ka buuxaan oo mataqaana fadhi ku dirka u badan masaajidka markii laga soo baxo salaada lagu sugo na way ku yaalaan xawaalada badanna way ku yaalaan dukaamo badanna way ku yaalaan suuqi weynaayo waamana way ku yaalaan marka aad iyo aad ganacsigu aad iyo aad buu u badan yahay imika xaafadan markay soo gaaray waxaan arkay Soomaali badan oo lugeynaysa oo aad marka timaado waxaad soonaysaa wadankii baad joogtaa bal waxaad wax nooga sheegtaa maqaaxidan aad ku leedahay xaafadan ee Shabeelle maxaad iibisaan waxaanu iibinaa cunto Soomaaligi baanu iibinaa cunto Carbeedki wax walba oo mataqaana wadankan laga cuno baanu iibinaa waxaad kaloo ii sheegtaa Axmedow aroosyada iyo meherada iyo xafladaha waxaad u sameysaan baa leedii aad taahdeen cuntooyin badan sameysaan casuumadiina waa sameysaan casuumaadki baan sameynaa welcome-ki baan sameynaa bukinadii oo kala duwan baan ka sameynaa meherki baan sameynaa aroosyadaan sameynaa
مساجدية نقول حيلان عقبة يا دار السلام يا الفرقان يا كل نقول حيلان ومتقنا نقسمينا مهرده اللي قبته wax walba oo macnaha u baahan yihiin dadkeena Soomaalida baan u sameeynaa aad iyo aad bad mahadsantiin daawadayaal kaas waxa Axmed oo kamid ah chefafka waaweyn ee marka waxaan ilaahay soo dhawaada qofkii rabo mataqaana hal neef laba neef saddex neef shan neef lix neef toddoba neef ilaa 20 neef waan sameeynaa waan sameeyaa saddex saacadood laba saacadood baan ku sameeyaa ani keligay iyo mataqaana staafki ها أفكاش مركزنا بناك أنكو كرننا ما قرأت سيد دق دق أنا وجينا قريه تبدي داشينا هذا نصور على الله بركة شاشة ده كده وات ku suganahay dukaanka la yiraahdo Faynuus oo ku yaala xaafadan Southall wuxuu kamid yahay dukaamada aadka u mashquulka badan ee xaafadan customer badan baa fadhiya halkan oo waa mashquul badan su'aalaha waan ka gaarsiinayna soo dhaw salaam alaykum عليكم السلام وانكو سلامي magacaaga noo sheeg walaal magacaygu waxa la Saacadiye Maxamed Aadan Saacadiye ku soo dhawtaan TV waa mahadsantahay ku soo dhawaa Saacadiye bal waxaad noo sheegsan waxaad iibsanaysaa noo sheeg waxaan iibinaa alaabo kala duwan cambuurada cabaayadaha duruucda Faransiiga duruucda wiilka qamaarada waxay nooga kala yimaadaan Dubai France Turkiga waka aad iyo aad alaab aad badan bad iibisaan kan customer badan oo ku fadhiyaan kuma si ku soo gaabinayna wax dadka daawadayaal ku dukaankan wuxuu ku yaalaa the green Southall ku yaalaa waa wadnaha ama daha of Southall ku yaalaa soo booqda hadad barnaamijka daawato وكالي سعدية يفينوس شوب ديسكاونت نوع لوكسينيا عادي عاد هذا قبلان قار كم يدري حكي ماذا دنمارك حتى إلا يوروب تكلا لوجي ماذا ألعاب ديسينر أو وضع السب أو دوان عن كيني هذا كسر دوان الحاجات كتير لندن نروي كي ماذا نروي أول دوي نروي بقصد محمد مار لندن أي هذه هذا الناس تين ده شرف له أي ما حد نسارتي والله إذا كانوا سودوا هذا هل كان واحد إسمه إذا تاجن دلتشن يمسوف خالد يرى أو أكتر وين هاي ما حدري وحلينا هاي وأنا وسلامة all your fans شعبك كله وسلامة يا حلينا هذا عاو وأنت لندن Southall بكسرت هاي دولة هل وحن كسرنا هاي تقريبا ولي كسرنا هاي هول كلمة هول لودياري midka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed oo loo yaqaan dalmal yar ayaa maanta halkan imanaya xafladan waa Southall loogu yeeray sababtoo ah loogu sameeyay xafladan wax weeyaan Soomaalida aad ugu badan waxa taagan DJ Ghost DJ one and only DJ Ghost caaw ka waran maxaad filaysaa xafladka filaysaa caaw is going to be history it's going to be history dalmal yar soo dhaweynaysaa welcome to London walaalkaygu weyn you know what I mean